Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada xalqadeenan maanta oo si toos ah idinkaga imanaysa bloggeena Muxtarif iyo kanaalkeena Cabdishakuur kanaal. Xalqada maanta waxaynu kusoo qaadan doonaa sida ciwaankaba ka arkaysaan sirooyin fara badan oo Facebooka ku jira balse dadku aanay uba fiirsan isla markaana aanay eegin ogeynna inuu ku jiro meesha. Marka ha iga fogaan intaynu casharka bilaabayno. kusoo dhawo xalqada mar labaad. Markaad Facebookkaaga timaado si toos ah waxaad u tegaysaa ishaa yar halkaa kugu taalla kadibna waxaad tegaysaa settings. Qof kastaana wuu garanayaa settings. Markaad settings timaado uu page-kan kusoo baxo toos waxaad u tegaysaa bartay ku qorantay notifications si bal aynu u ogaano sirahan faraha badan leh ee ku saabsan Facebookgeena. Halka ay ku qorantay on Facebook ayaad leedahay edit baad leedahay si uu kugu soo saaro page-kan kale. Now page-kan markaynu nimaadno waxaad arkaysaa siro fara badan oonad hore u ogeyn in ay meeshan ku jiraan in ay bartan ka buuxaan ay aad uga buuxaan. Waxa weeyaan tusaale ahaan notification dabcan isla wada garanaa waa button-ka yar halkaa markaad ku dhufato soo baxaya waxyaabaha like garaysay comments-kaaga iyo ciddii kuu soo like garaysay uu kuu soo baxayo. Notification-kaas ayuu ku leeyahay markaad hesho notification cod ha kugu soo galo waa on waad off garayn kartaa waanad on garayn kartaa. Marka aad rabto inaad xaalad yar oo in yar aad iska yar off garayso oo yara diidayso dadku inay ku wareeriyaan oo bilaa cod uu kugu soo galo tirada uu kusoo gasho waad off garayn kartaa. Haddii kalena waad on garayn kartaa. Kan kale waa message-ka marka uu kusoo galo on garee cod inuu kugu yimaado cod ha kugu yimaado macnaha waa on isagana waad off garayn kartaa sidoo kale. Labadaasi wax saasa ma sii laha. Activity that involves you activitieska kula socda. Kan waxa uu ku leeyahay markuu qof kugu soo tag gareeyo photo ama comment boostadaada ayuu ku leeyahay qof ha kugu soo tag gareeyo ama kugu soo post gareeyo. Marka kan dabcan waxba ka bedeli kara mayna kan on ayuu khasab ku yahay waa shirkadda meel kasta kama soo helaysid oo aad ku off garayn karta ka. Halkan kale birthday-ga waxa uu ku leeyahay marka ay asxaabtaadu birthday leeyihiin waa waxaan shuqul gaaleedka inuu wareeriyay birthday-ga oo kale iska off garee haddii aad rabto. Marka off iyo on aniga Facebookkayga kale ka off garaysan yahay haddii aad rabto waad iska off garayn kartaa. Birthday-ga waxaan waa iska shuqul gaalo kanna aan ka off garayo off baan leenahay. Your friends live events kan wuxuu ku leeyahay marka ay friends-kaagu notification lagu soo post gareeyo sida event-ka live event-ga marka uu ilmahaagu matal tusaale ahaan saaxiibkaaba wuxuu ku leeyahay in ilmo u dhashay kadib waxaa jira events yar oo la sameeyo la yiraahdo feeling happy wax noocaas oo kale ah iyo married iyo uu guursaday iyo ereyada yaryar noocaas oo kale ah iska off garee iyo on garee ayuu ku leeyahay. Marka dabcan kan waa on saas ayuu ku fiican yahay waa wax iska caadi ah qof marka saaxiibkaaga ah uu ilmo dhalo inaad ogaato kadib marka on iyo marka uu baby iyo marka uu married sameeyo marriage guur. Kan waxa uu ku leeyahay bartan close friends activity-gaaga waxa uu leeyahay dooro haddii aad rabto inaad notifications-ka ka hesho close friends-kaaga asxaabteeda ku dhadhow. Marka waxaad oran kartaa on Facebook wax kasto Facebook-ga notification-kaaga ka hel maya waxaad oran kartaa asxaabteedii aadka igu dhadhow oo kale igu dhadhow ka hel on Facebook and email Facebook iyo email ba labadaba ku hel baad oran kartaa off baad ka dhigi kartaa macnaha inaad helin notification baanad helin ba waad iska off garayn kartaa bartanaad ka off garayn kartaa notification-ka. In tagskan dabcan waxa leeyahay get notifications when you are tagged by marka lagu soo tag gareeyo wax notifications-ka hel notification halkaa ka soo hel hebel baa waxa kugu soo tag gareeyay notification-ka. Dabcanna waxa jira waxaan ku raacin doonaa qayb yar oo kale oo marka asxaabta qaar ay ka cabanayeen muddooyin fara badan soo weydiinayeen oo ah qof baa matal waxa kugu soo tag gareeyay video fool xun uu soo dhigay ayuu leeyahay waxa ila soo dhigay tags waxa ila soo dhigay qofkan hebel baa ila soo dhigay oo kale ayuu ku oranaya. Marka waxaas oo kale la iskaga xanibto waan ku dari doonaa insha Allah. Pages you manage halkan waa qayb kale oo dadka badankooda aan ogeyn pages you manage qaybtan waxaad ka edit garayn kartaa page-ka aad iska leedahay. Marka sorry Facebook page mo lahayn waan ilowsanaa
waxa uu u baahan yahay page. Marka qaybtan marka page uu kusoo dhigo dabcan aad editora waxa uu kusoo dhigaya pageskaagii kolba haddii hal page oo kale. Marka pagekaagaagu on iyo off oo kaliya isaguna leeyahay on iyo off. Kadib pagekaagu haddii uu off garaysan yahay dabcan facebookani waa mid kale oo imika sameeyey si aan ugu sameeyo xalqadan oo kale. Marka maan ogeyn waan ilowsanaa pagekaas oo kale. Marka pageskaaga on iyo off buu kusoo dhigayaa. Haddii aad rabto pagekaaga in aad yaro off garayso muddo cayiman aad yaro off garayso si aad wax uga bedbedesho waad off garayn kartaa. Halkan ayaad ka off garayn kartaa. Dibna waad uga soo on garayn kartaa pageka. Halkan ayuu kusoo dhigayaa. Kan waxa kusoo dhigaya pages waan soo aragnay group activity. Kan waxa kusoo dhigaya dhammaan groupeska aad ku jirto oo dhan. Groupeska aad ku jirto oo dhan buu kusoo dhigaya. Manta tusaale wuxuu ku leeyahay groupkaas koowaad oo kale waxaad siisaa buu ku leeyahay groupka highlightskiisa si highlights. Macnaha postiska ugu caansan iga tus oo notification kooda ay sii. Maya waxaad siisaa notification all posts post kasta mid xun mid caadi mid daciif aan cidiba like garayn dhammaan noocay doonto ha noqotay isoo all postiskiisa sii. Waxaad samayn karaysaa highlights ba samayn karaysaa sida aad saaran. Tusaale ahaan ay niraahno all posts oo kale. Tusaale ahaan waxaad aragtay halkan waxaad arkaysaa groupyo fara badan iyo pages fara badan oo ku jirto. Groups buu marka halkan web groups waxaad arki kartaa show more baad oran kartaa. Halkan ayaad iyagana ka maamulaysaa. Halkan waxaa jirta qaybtan ugu dambeeya dabcan facebookayga waa mid cusub san ku sheegay apps fara badan ma laha labada app oo kaliya ku jira oo imika galiyay. Marka people rollout waa app ku suura galiyay in facebookaaga qof tusaale ahaan qof saaxiibkaaga facebookaaga isticmaalaya oo online ah ayuu app kan yar ku suura galinayaa in aad sawirkiisa aragto oo isagoon ku ogeyn aad kamaradiisa shidaysaa. Kamarada mobilkiisa waa kind of hacking waa nooc kamid ah hacking-ka oo in qofka mobil hadduu ka isticmaalay kamarada mobilkiisa furaysaa kadib waad daawanaysaa qaabka uu yahay haddii qofkaasi feera qaawan yahay hadduu iska fadhiyo hadduu jiifo. Marka people rollout baa la yiraahdaa. Waxaan rajeynayaa xalqadaha dambe idin kusoo diyaariyo xalqad dhammaystiran insha Allah. Marka halkan waxa uu kusoo dhigayaa apps-ka waxaa jira markasta inaad qaybtan facebookaaga si safety-giisa iyo ammaankiisa aad hubiso waa inaad qaybtan eegtaa markasta in apps lagu soo daray. Sababtoo ah hackersku waxay isticmaalaan ayaamahan dambe apps facebookyada ay kusoo darayaan oo metal facebookaaga san hore uga soo sheegnay phishing xalqad hore uga soo ilaa laba xalqadood aan kaga soo hadalnay phishing-ka waxa uu sameynayaa page baad soo wax ka soo share garay Mareykan laga leeyahay oo kale oo aanad garanayn qofka leh oo kale. Waxa laga yaabaa in hacker leeyahay oo kale ama aad u aqoon website-ka qofka leh kadib markuu ku arkay in aad u aqoon ama wadan kale aad ka timi waxa uu kugu sameynaya kind of hacking kale. Marka apps-kaaga halkan haddii aad aragto oo khatar kuga on off baad siinaysaa. Ugu dambeyn waxaan yara raacinayaa su'aalo hore oo asxaabta qaar soo weydiinayeen oo ahayd in dadka qaar wax kugu soo tag garaynayaan video kugu soo daraya kugu soo tag garaynaya oo oranaya hebel baa ila soo dhigay oo kale video xuma ama sawir xun. Waxaad tagaysaa tag timeline and tagging si aad iskaga off garayso waxa kadib waxaad leedahay sawirkan ku soo baxaya. Halkan aad enable garaynaysaa macnaha qof baa sawir soo dhigay fool xun sawirkaas oo kale halka ka muuqda kadib wuxuu leeyahay sawirkan waxa ila soo dhigay saaxiibkay hebel. Markuu saa yiraahdo waxa ku imanaya message-ka halkan kaaga muuqda. Wuxuu ku leeyahay ma uu ogashay inuu timeline-kaaga ku daro mise wada diidaysaa. Haddii aad u diidayso hard baad leedahay haddaad ogashayna add timeline. waan ka xumahay xalqadeennii maanta halkaas ayay ku dhamaatay. Waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysatay isla markaana aad jeclaatay. Haddii aad jeclaatay fadlan ha ilaawin inaad like garayso isla markaana aad u share garayso asxaabtada haddii aad karayso. Sidoo kale subscribe garee kanaalkeena adigoo nagala baqaynin. Inta ku kulmi doona darsi dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.